Assalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaan maanta idin wadaa sheeko aad iyo aad cajiib u ah, waxayna dhex martay nin gabayaa ah iyo boqor. Sheekadan waxaa gundhig u ah aayado quraan ah. Haddii aad hadda ka hor maqashay gabadh iyo wiil ku haasaaway ama ku sheekaystay quraanka oo iskugu jawaabayay, maanta waxaan idin wadaa nin gabayaa ah oo nin boqor ah hanti aad u badan kaga qaatay aayado quraan ah oo uu akhriyay. Wuxuu ahaa nin gabayaa ah aadna u xikmad badan, dhanka kaletana si fiican u yaqaana oo xifdisan quraanka kariimka ah. Wuxuu u imaaday nin boqor ah, wuxuuna u qaaday oo u tiriyey gobay aad iyo aad u macaan. Boqorkii wuxuu la dhacay gobayga uu ninka u tiriyey, waxayna dadkii hore dhaqan u lahaayeen markii la rabo boqorka in wax la weydiisto, gobayo ayaa loo qaadi jiray lagu ammaanayo dowladiisa, nasabkiisa iyo isaga qiimihiisa. Boqorkii wuxuu ninkii ku yidhi, i weydiiso wax waliba oo aad rabto waan ku siinayaa. Wuxuu yidhi ninkii gabayaaga ahaa, waxaan akhrinayaa aayado quraan ah, waxaan rabaa marka boqorow inaad i siiso aayad waliba oo aan akhriyo lambarka ku jira. Yacni haddaan aayadan akhriyo oo tirada 1 ama 3 ama 5 ku jirto wax u dhigmo oo lacag haysii. Wuxuu ku yidhi boqorkii, waa diyaar, welina si karaamo iyo jacayl ku jiro. Wuxuu bilaabay ninkii shaacirka ahaa inuu akhriyo aayadihii uu ku dalbanayay hantida, wuxuuna akhriyay qowlka Ilaahay subxaanahu wa tacaala, wa ilaahukum ilaahun waaxid, waxaana la siiyey 1 diinaar sidii ballanku ahaa. haddana wuxuu akhriyay id akhrajahu aladiina kafaruu thaniya thunayni id humaa fi lgaar, waxaana la siiyey 2 diinaar. wuxuu akhriyay haddana walaa taquluu 3 intahuu khayran lakum, waxaana la siiyey sidii ballanku ahaa 3 diinaar. wuxuu haddana akhriyey alam tara ana allaha yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lardi maa yakuunu min najwa 3 ilaa huwa raabicuhum walaa 5 ilaa huwa saadisuhum, waxaana la siiyey diinaarkii 4, kii 5 iyo kii 6, maadaama oo tiradaasoo idil ay aayadda ku wada jiraan. wuxuu haddana akhriyey allahu aladii khalaqa 7 samaawaat, waxaana la siiyey 7 diinaar. wuxuu haddana akhriyey wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yowmaidin 8, waxaana la siiyey 8 diinaar. wuxuu haddana akhriyey wakaana fi lmadiinati 9 rahdin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun, waxaana la siiyey 9 diinaar. wuxuu haddana akhriyey tilka 10 kaamila, waxaana la siiyey diinaarkii 10aad. wuxuu haddana akhriyey yaa abati inii ra'aytu 11 kowkaban, waxaana la siiyey 11 diinaar. waxaa haddana uu akhriyey ina ciddata ashuhuuri cinda allahi 12 shahran fii kitaab illaah. wuxuuna boqorkii yidhi markay xaaladdu meeshaa marayso, icuuhu dicfa maa dakar wadriduuhu, waxaad siisaan inta uu sheegay 2 jibaarkeed, igana feejiya oo iridda ka bixiya. ninkii gabayaaga ayaa wuxuu yidhi limaada yaa mowlaay, maxaa dhacay boqorkaygiiow oo aad sida u samaynaysaa? boqorkii wuxuu yidhi khiftu an taquula wa arsalnaahu ilaa 100,000 aw yaziiduun, waxaan ka baqay in aad dhahdo oo aad soo qaadato aayadan qur-aanka ah ee uu alle subxaanahu watacaala markii uu ka warramayey nabiyullaahi yuunus iyo qoomkiisa uu ku yidhi waxaan la diray 100,000 iyo ka badan. inaad aayadda akhrido oo aad iiga baahato hanti intaa dhan ayaan ka baqay, marka intaas igaga jooji. sheekadana waa mid ka mid ah sheekooyinka ugu quruxda badan ee aan akhriyey, aadkana aan ooga helay. fadlan haddii aad sideedoo kale ka heshay, leeg saar lana sii wadaag asxaabtaada. sidoo kale ka mid noqo walaalaha ku xidhan janalka ilayska islaamka, kusoo biiroo sabskrayb dheh si aad noola faa'iidaysato. waa walaalkiin axmed anas bashiir oo idin leh ammaano allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.